sidii ay hore ugu dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda in la bilaabo ololaha isxilqaan waxaa maanta ka socda degmada warta nabadda ee magaalada muqdisho olole isxilqaan oo ka socda guud ahaan 5 waaxood ee degmada ay ka kooban tahay waxaa hadda kormeer inoogu yimid wasaare xasan cali kheyre oo uu korgalay sidii ololaha isxilqaan uga socda degmada warta nabadda runtii maanta ololaha waa ka duwan ololayaashii hore ama shaqada hadda aan ka wada degmada maxaa yeelay maanta waxaa guud ahaan laga wada shaqeynaa 5 waaxood ee degmada ka kooban tahay oo laamiyada mara xaafadaha jilcabayaasha wadooyinka caadiga kulli ololaha waa ka socda runtii waxaan rajeynayaa in ilaa ololaha ilaa galabta maqribka uu socon doono si degmada qashinka iyo howlaha nadaafadeed u baahan tahay loo gabagabeeyo sidii uu hore inoo faray wasaaraha toddobaadkii la soo dhaafay waxaan khamiis walba samayn doonaa ololahan isxilqaan oo aan ka samayn doono mid ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir ama meelaha muhiimka ah caasimadda muqdisho waxaan rajeynayaa ololahan isxilqaan inuu magaalada bilicdeeda iyo quruxdeeda iyo nabadgelyadeeda wax weyn ka bedelo